بسم الله الرحمن الرحيم. marka hore waxaan u hambalyeynayaa xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliyeed ee dhawaantan la doortay ee loo doortay sida milgaha iyo maamuuska leh inay bulshada uga wakiil noqdaan. waxaan leeyahay hambalyo mar labaad iyo mar saddexaadba. marka xiga waxaan u jeedinayaa baaq ku wajahan iyaga maadaama ay yihiin wakiilkii bulshada inay u soo shakhsiga ay u soo xulayaan inuu noqdo mid wax walba ka nadiif ah. su'aal baa oranaysa darajo iyo xilyaamo hogaamiyaha dadkiisa halista waa uga digaa iyo dibindaabyo qarsoone niman maanta dalkiisa dabka uu ka huraayo xal u dooni karaynin xil iyo darajo uma qalmee waxba yaanu isdaalin. ummaddu way isdisho daxalaysatay laabtuye isu soo dumidooda daciif aanan awoodin darajo iyo xil uma qalmee waxba yaanu isdaalin. dani haddii ay ka dhaxayso dadku waa ka shiraaye dictator keligii wuxuu doona falaya darajo iyo xil uma qalmee waxba yaanu isdaalin. dad intuu hor yimaado niman dood wax ku ooliyo hadal deeqa karayno damman oo jilicsan darajo iyo xil uma qalmee waxba yaanu isdaalin. damaaci aan waxba deeqinoo dhuuntu ay u dalasho degdeg xoolo ku yeelo dubaaqiisa ka buuxdo darajo iyo xil uma qalmee waxba yaanu isdaalin. dalkeennii wuu burburoo ducina nooma fayoobo dib in loo dhisa weeye nin ka daahan adduunkoo ka daboolan aqoonta darajo iyo xil uma qalmee waxba yaanu isdaalin. bulshada Soomaaliyeed waxay doonaysaa waxay danaynaysaa waxay dooranaysaa shakhsiga dabeecadaha aan soo sheegi doono leh. waa kuba kaasi waa nin caynkee ah. kow dadku nimuu u siman yahay dulmidiid cadaalada dadaal badane howlkara lagu diirsay geesiga faxal iyo nin deeqsiga samir iyo dulqaadba leh damiir lagu xishooda leh dareenkii waddaniga leh quweeyaha diinta ah ayaa darajo iyo xil qaban kara duca iyo kalsoonina waan ugu sii daraynaa.